wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland Maxamed Ibrahim Aadan Qabyati ayaa waxa uu sheegay in laga hor istaagay inuu sheego lacagtii murashaxnimada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye. wasiirkii hore qorsheynta saxaafadda kula hadlay xarunta guud ee xisbiga Kulmiye hortiisa ayaa waxa uu soo bandhigay cidda ka hor istaagtay inuu shubo lacagta, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xarunta xisbiga horteeda waxa sidaad maqlaysay baryahan badee xisbiga waxaan islaa in badan u xil qaray laakiin waqtigeedii bay soo gaadhay. waa arkaysaa khamiistii baan imay waxaan doonay inaan araajideedii waqtan shuruudaha lagu xidhay shuruudihiina waan soo buuxiyey. waxaan u imay khamiistii askar baan halkan ugu imay askartii way iga celiyeen albaabka. markii dambana gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xilif baa intuu soo kacay albaabkii hoosta ka xidhay. aad baan u garaacnay qoladii gudaha way isqabsadeen. guddida qabanqaabadu waxay isku qabteen laba u kala qaybsameen inuu soo dayno iyo inuu soo dayn. ilaa saacad baan la joogay war lacagtana iga qabta aragtidana iga qabta. waxaan u tartamayna waxa gudoomiyaha labaad ee xisbiga Kulmiye ee ka tirsan golihiisa dhexe ahay. garan maayade wax aan ama dee ujeedo ama xeerka xisbiga dee haddaan intii imika la bedelin wuxuu ahaa xisbi dimuqraadi cid kastaana u tartami karto. laakiin waan dul qaatay meeyana uma sheegin cidna uma sheegin maalinta hore meesha askar baan riixriixday waana loo diiday inaan dhiibno lacagtiina la iga qabto. markii dambe aduna baa soo baxay Axmed Cadarre dibadda uu la hadlo wuxuu iska tag anaga soo dhamaysan anaga isaynay. kadib markii dambe waan galo waraaqahaygii waxaygi bay eegeen check baan u dhiibay checkina waxay yiraahdeen ka qaban mayno kaalay sabtida waa kan qof kama joogo meeshana waa cidla. waxaan arkayaa ujeedo gaar ah aniga leegan leeyun ama deegaan ahaan dadka ka soo jeediya anagaba naloo jeedo. way hogaanbaan meesha hogaanka waxaan ku lahayn hal meel waxaan ku lahayn xogayaha guud ee xisbiga. waxa laga dhigay xogayaha guud ee xisbigana nominated in la magacaabo agaasimo waxeeda. xaq baan u leenahay inaan hogaanka marka u tartanno xeerka xisbigana meel ay kaga qorantay reer hebel baa halkaale iyo reer hebel baa halkaale anagu garan mayno magacyo loo kala sameeyay. waa darro weyn oo xisbigii Kulmiye ku habsatay in la yiraahdo cid baa loo xidhayaa iyo soo gali maysaan. laakiin libaax laba raqood laga wada kiciyo madaxweyne Muuse Biixi haddii aan xukuumaddiisii ku ixtiraamnay raggaygii la shaqeeyay ilaa haddana xisbigii agtiisa soo mari maysaan ka yeeli mayno. marka lacag baa shuruudaha ku jirtay lacagtii ka warqiyada lacagtii waatan tobankii waa sida labadaba waan maaragtay hadii tobankii kuwa kaasay ugu xidheen waraaqana waa kan maanta kaash ka soo dhigay kaash ka soo dhigay. haddaad shuruudihii buuxisay lacagtiina buuxisay sababta lagu diiday maxaa wallahi garan maayo shadada garan maayo ma garanayo inaguna wareegi. laakiin waxaan leeyahay maxaa geed la beero gunta laga biyan jiray gacmuhuna ka daaleen markuu gaaray heerkii ubax guudka qariya laga guran lahaa midho kii ku gaajo bixila inta gudub uu la tagay gamka siyaxidada ilaa good abaal ma leh kusoo dhawow sariflayaasha geelmanaaya ka saanjiya adigoo sulbacaadin ama aan sara joogsan ama suuqaba aadin haddii aad sarif doonto sanacadii u dambaysay geer baa kuu sahlay maanta. haddaba ka sarfa lacagtaada lambarkan 320431 ama 9320243 anma labaad kugu cesho 320431 ama 9320243 oo aad ii dahabka ka sarifanayso sariflayaasha geelmanaaya ka saanjiya.